hayba waxyaalahaas oo dhan ayuu ku noolaanayaa. hadduu adduunyo jeclaadana intaa kama baxayo xanuun iyo dulli iyo xumaan kama baxayo. walaysa calaa cabdin taqiyin naqiisa qof addoon ah oo ilaahay ka cabsadana qofkaas wax naqiisa iyo wax darajo yaraana iyo wax magaranaysaa yaryaraysiya qofkaas ma laha. hadduu qofku ilaahay ka baqo waa rafiic, waa qof sare wey. idaa xaqaqa taqwa wa in xaaka aw xajam qofkaas hadduu ilaahay ka baqo hadduu doono ha kula doodo oo ha kula murmo oo wax iskula murma oo wax ku wada dooda oo magaranaysaa hadday doonto adduunyada dhibaatadeeda ha qabsato, hadday doonto magaranaysaa mushkilo oo dhan ha isugu timaado. laakiin hadduu ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsado qofkaas waxa weeye wax naqiisa iyo wax magaranaysaa sharaf yaraan ah ma laha. atacwiidu min allahi khayran mima tarakahu qodobka 19aad waxa weeye in ilaahay subxaanahu watacaala haddii aad daraaddii wax uga tagtid adoo ka cabsanaya in ilaahay subxaanahu watacaala wax khayr badan kugu bedelayo. waxa weeye arrin baa kugu timi, arrintaas ma garanaysaa waxbaad jeclaatay wixiiba waxaa aragtay waxaas in ma garanaysaa haddii aad waxaa qaadatid in diintaadii ay khalkhal gelayso ayaa aragtay. waxaa aragtay cabsidii ilaahay subxaanahu watacaala iyo ku dhaqankii diinta in ma garanaysaa ay khalkhal gelayso ayaa aragtay. hadhow haddii aa waxaa ka tagtid dee waxaa weeye khayr baa helaysaa oo ilaahay subxaanahu watacaala wax khayr badan ayuu ku bedelaya. taariikhdii laga sheekayn jiray ninkii mu'adinka ee addumi jiray ee meelaha masar qisadii ka dhacday ayaa wuxuu fuulay minaaradii siduu u addimo. marka masaajidka waxaa ku dhegsanaa guri ay deganaayeen heer nasaara heer gaala oo kristana. marka heerkaas gabadh qurux badan bay lahaayeen. kii mu'adinka ayaa wuxuu ku arkay gabadhii meesha ayuu ku arkay. admaadii muu dhamaystirin bartaas ku jooji wuu tegey heerkii buu u galay gabadhii buu la sheekaystay wuxuu yiri waan ku jeclahay waxaan doonayaa inaan ku gursado. macnaha gabadhaas gaalada ah jacaylkeedii ayaa wuxuu galay qalbiga. waxyaalaha ilaahay subxaanahu watacaala ku imtixaamo oo kale ilaahay baa kugu imtixaamaya xitaa waxaa laga yaabaa ilaahay inuu kugu imtixaamo oo haddii aa waxaa ka tagtana ilaahay subxaanahu watacaala daraaddii uga tagtana in ilaahay gabadh kale oo wanaagsan uu ku siiyo. haddii aa ka tegi weydayna in ma garanaysaa oo ilaahay subxaanahu watacaala dee imtixaankii aa ku guuldaraysato. hadhow ayaa wuxuu sameeyey markuu galay ayaa wuxuu yiri waan ku jeclahay waxaan doonaya inaan gursado. ayaa waxay tiri aabahay maqan. aabahay baa waxay tiri odaygii baa yimi. odaygii markii yimi waa loo jabay shiirniyo anna muslim baa tahay annaguna kristan baan nahay ismana gursado. marka mushkiladu waa halkaa. mushkiladu dee waxaa weeye waa halkaasoo dee odaygii baa wuxuu diiday ninka muslimka ayuu diiday. iyadu ahlulkitaabku waa mas'alo kale oo ahlulkitaab yuhuud waa nasaara kuwaas gabdhahooda ma garanaysaa caadiga ee kuwa saaniyaadkaan ahayn ee caadiga ee gabdhaha wanaagsan muxsinaadka is ilaaliya dee kuwaasu waxa weeye way u bannaan yihiin dadka islaamka way guursan karaan. markaana wuxuu yidhi anigu ma garanaysaa maba yeelano qof islaama ma marno. mushkiladu halkaasa ka bilaabantay. hadhow baa wuxuu yidhi diintiinaan soo gelaya waa caadi dhib ma laha. diintiinaan soo gelaya waayahay baa la yidhi. diintoodii buu galay iyagoo meeshii ku sheekaysanaya oo aan weli ninkii ma garanaysaa gurigii kasoo bixin. gabadhiina calfan ayaa wuxuu kasoo dhacay dabaqii guriga ayuu kasoo dhacay. sidaasuuna ku dhintay. waxa weeye khaatimatu suu. waxa weeye ninkaas hadduu gabadhaas maadaama ay ku dhaheen anigu wax ma garanaysaa diinteeda aan ahayn uma guurino inuu si kale u yara farsameeya ahayd. hadday ku adkaystaan na dee inuu iska daayo ama waxba yuu farsameyne waayahay uu dhaho oo iska samiro oo ma garanaysaa dee jacaylkan iyo waxyaalahan hayaan iska baabi'iyo. hadduu intaa sameeyo
وجعلك اسكبا بينا أو حيالها تكبلوا الفربدين إله سبحانه وتعالى أيا نسيب كيسا أيا وحقر إلى أما وجبدل لها متكون أحسن أو مقارنة كورة markaan waa sidaas cabsidu haddii aad ilaahay subxaanahu watacaala daraadii ugu tagtid fadligay leedahay ayay ku saabsan tahay qodobka 19aad nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri innaka lan tad'a shay'an kama takisid shay ittiqaa allahi subxaanahu watacaala liajli الله سبحانه وتعالى لأجل تقواه أذكر إله سبحانه وتعالى كعب صنيا دلادي شيء ومتجسد إلا حباك الله خيرا منه إلا إلهي وحكسينا يا وحك خير بدن هدي هنتي حرانك سوق شيء وهنتي ده حرانته وكتكتيت وإله سبحانه وتعالى دلادي وتكتي إلهي وحكسين دونا هنتي خير بدن هدي شيء حرانك سوق له أو مقرنا سا هدي قبل السنة هو يدو أو أديتو سندي إلهي وحكسينا يا من حلال الحكسينا يا يو إلهي وحلقيا وقول كذا وحبا إنه فوضيو مركانا واسداس التقوى خلف من كل شيء عبسيدو وحوي خلف أي وتعي وحكستبا وحكستبا وي كوتب ديكسا التقوى سبب لإطمئنان القلوب عبسيدو سبب أي وتعي إن قلبك أكو حسلونه وقلبي تجن وياي ساسو قال صفات المتقين مقرنا ساكوا على أجسادهم بيكردوين صفات المتقين مقرنا ساسفوين كوناكسن يصفوين كان كسر شكاني لكن سو محاجرة صفوين تدك متقين تاع أي قاب أهل أوليين وجهولا جوارح دولا شيء أوليين أيليين مكان صفوين كمتقين تاع وحال راعية صفاته يا المحبين إلى الله سبحانه وتعالى والعاشقين إليه تذكر إله سبحانه وتعالى جعل محايري صفات قفكن مركا من قرن ساعات إله سبحانه وتعالى مركا عمل كيس بديسيت وقلبي على إيمانك بريد يتقوى وحيرانا صفوين كتذكر إلى وحجعل تذكر إله سبحانه وتعالى جعل سيدا قفكو قبل هدو جعلاده وقبل هدو لشكستو هدو تنجعل ويسكو قادان هدو تنو قفكي وكمقضو نكن جعل باكا مقضو ومقرنا ساتي سفوين بوليه جعلكو ومقرنا سا إنو قفكي كفكرو إن مقرنا سا قفكي مقرنا سا يردون هذا يرعات هذا مقرنا سا وحيابهاس أردن ذاك قار مركا أدوكو سفوين باقفكا وجهيسا كصباح مركان سيفوين كاس مكان قفك التقيقة إله سبحانه وتعالى كعبصدا يسقو على أجساده وحوليه هاي مكان نسا سيفوين كارأه أو وح جسد كيسا سيفوين كاس جسد كيسا أي كصباحان كيسا وجهيسا ولي بحالة أي كصباحان وحالة العبادة مركي قرآن كأخرنيان مركي سلادة تكنيان مركي عبادوين كواوين سميانيان مركي حجيان markay waxyaabaha sameeyeen ay aad uga soo baxaano de waxa weeye sifatu khushuuc ay dhexda ka gashaa ay hoosta ka gashaayo khushuucdaas ay magaranaysaa ku qarsoontaa markuu qofku khushuuco ayaa isla markiiba waxa la arkaa magaranaysaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala jecel yahay markaana jacaylku waa sidaas walaalayaal ninkii shaacirka wuxuu yiri cish ma badaa laka saaliman في ظل شاهقة القصور انت دونتي نولو ولبا واحد كنو لا تاغوريو يسرر في دبغيا لا دير وأعرق يسعى عليك بما اشتهيت وحكستو أجعشهينا هلغو لسو أرتو لذا الرواحي وفي البكور أرور يقلب وحكستو أجعشهينا هلغو سيجو دعامكي شرابكي وحلغو صدي وأردتك هانتي دالي guryaha waaweyn degan magaranaysaa caanka ah dee magaranaysaa wax kastoo ay jecel yihiin waa loo keenaa cuntadii baa loo keenaa labiskii baa loo keenaa xitaa gabdhahay jecel yihiin baa loo keenaa oo magaranaysaa kala nooc waxaas oo dhan waa loo keenaa raaxo dhan waa loo keenaa waxaas oo dhan habeenii maalin ha lagu keeno adduunkana intaa doontid nolow ayuu ninkanu leeyahay فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور معناها مركي نفتو يدلع سنتو مقرنا ساعة دواخضو نفتنا سو قادو
laabta ay halkaa ku ciriiroonto oo qof macnaha naftu ay kasii baxso fawnaaka taclamu muuqinan markaas ayaa waxaa ogaan doontaa si dhab ah maa kunta ilaa fii quruuri maad ahayn ilaa quruur iyo qaflo iyo ismoodsiin iyo mawjad kale inaa ku jirtay maahan markaana waxaa la doonayaa in waxyaabaha laga baxo in fakarka iyo magaranaysaa meelaha kale lagu mashquulsan yahay iyo khiyaaliga iyo yacniga iyo naftu qofka waxay u sawreynayso wax iska khiyaaliya isagoo gurigiisa aan ka bixin ayaa qofku inuu guryo waaweyn dhistay iyo lacag helay iyo adduunyo helay iyo waxyaabahaas magaranaysaa ay u sawreynaysaa markaana waxyaabaha khiyaaliga in laga baxo oo xaqiiqada loo qodo galo oo ilaahay subxaanahu watacaala loo toobad keeno insha allahu tacaala barnaamijkeenii ahaa lacallakum tattaquun intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa rabadaantan waxaynu ka hadlinay barnaamijkii ahaa lacallakum tattaquun rabadaanta in laga helo cabsi isagoo xalaqooyin iyo qaybo aad iyo aad u fara badan leh markaana ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu nagu anfaco rabadaantana khayrkeeda iyo barakaadkeeda iyo camalkeedaba ilaahay subxaanahu watacaala inaga aqbalo insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala si wacanna ciida haynugu dhammaystiro wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu